السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندات ربنا أنا رشيد كمدة وحا أن كحدنا نينك ما أنت عن كهذا لي أما مقال كان أقصى قادنا هاي سندات أولي حيل أبدا كوني أفرية طبنك إلى تدوي طبنكي أنا قون إيمو هاي نسيدو كلام ربنا عالم الإسلامي جودهان يصومالي ذا جار أهم بكمدة أيو أها مرجع يمال أي أولابتان مركا أدمه دين تنقطون هذا maxaa keenay in uu sidaa hoos u dhac inta leegmaanta ugu yimaado oo wax allaale uu hore u sheegi jiray ama uu isagu markii hore dadka ku dhiiri gelin jiray maanta uu raadkiisa dib u qaado maanta waxaanu muuqaalkan ku soo qaadanaynaa sheekada soo bixistii daaciga loo yaqaan Adnaan Ibrahim sidoo adduunka u qabsaday sidoo dhalinyarada muslimiinta ah maankoodii maskaxdooda u la wareegay iyo maanta halka uu ku dambeeyay ee daawasho waan ummadaha marka dhacdooyin ay soo wajahaan gaar ahaan dagaalo waaweyn oo ay ku jabaan ama marka ay la soo gudboonaadaan zalazil iyo kwaaris dabiici ah oo waxyeelo weyn gaarsiisa waxa ay taasi keentaa iimaankooda iyo caqiidadoodu in ay gilgilanto sida awgeed caalamka islaami 1914 wixii ka dambeeyay ama dagaalkii koobaad adduunka wixii ka dambeeyay waxa aad ugu soo faafay mowjado ilhaad iyo cilmaaniyada waqtiga wixii ka dambeeyay gaar ahaan dalka Masar waxa aad u soo faafay oo qabsaday cilmaaniyada iyo ilhaadka mowjado ilhaad ah oo غير طبيعي ah ayaa ka bilaabmay oo soo gaaray ilaa iyo dabayaaqada qarnigaas 20aad sidoo kale Masar uu kuma ekaan caalamka islaami dhamaantii ayay wada qabsatay cilmaaniyadaasi iyo ilhaadkaasi oo Turkiga iyo dalalka badan ee kale la midka ah iyaguna way la qabeen hadaba maxaa keenay waxa keena ummaduhu marka ay jabaan sida muslimiintu ay ugu jabeen dagaalkii koobaad adduunka ee ay dawladda Cuthmaaniyadu matalaysay ama sida Jarmalku uu ugu jabay dagaalkii koobaad adduunka iyo Austria waxa yimaada in iimaankoodii iyo caqiidadoodii iyo waxyaalihii ay aaminsanaayeen ay ku laabtaan oo isweydiiyaan haddii sida aanu aaminsanayn aanu nahay dadkii wanaagsanaa maxaan u jabna maxaan dagaalkan ugu jabna maxaa waxyeelada inta leeynoo soo gaadhay maxaa cadowga nooga guuleystay waana wax dabiici ah saxaabadii nabiga oo la joogta ayaa markii lagu cadaabayay Makka waa kuwii nabiga ku lahaa يا رسول الله إلهي نسرقيسي ماي إلهي نسرقيسي قولون سو قاري يو محي تقرقار كيسي لكن يو وحين غيرنا سيبوعنا يو وحا دح جوغي النبي صلى الله عليه وسلم ومركز ستاقو إيمان كود وخلخل قالو وتثبيتين اي ومرو بيسو كودتين اي ولابتو كودتين اي وحي سمدو ويمن اي وكي النبي صلى الله عليه وسلم وشيغا اي كلها تذكيري كوري نيكا كميد انت مسكحدا برتن كيدا لغا قبتا من شار ايا لغو كلا جراي لبا لو قيبين اي تاسينا دينتيسا كمي فتنينين والله إلهي قوشي سوى إيمان الساية ولكنكم قوم تستعجلون هذا بقى شكدا وحاكو كان لابد يكون يكوب يتوانك وحي كدن بي وقتي وقرحي لابد يكون يتوانك لابد يكون يكوب يتوانك وقتي قوق عربيد محاية تيل وقرحي كارهان دلالك عربيد وكقرحي تونس يا مصر يا يمن يا ليبيا يا أي كمية كيهين يا سوريا كعدونا داس شعبكو أي كوكعين أندمدو دي يا دولدو دي ولا بيليتي dawladaha shisheeye ayaa ka qayb qaatay oo si toos ah oo loo kaca uga shaqeeyay in ay ku dareystaan oo la aaso kacdoonadaas sida guud Masar Suuriya oo dhawaan ay guuleysatay 14 sanadood kadib Liibiya Yemen dhammaan dalalkii ay ka kaceen kacdoonada Carabeed marka laga reebo Suuriya waxa ku yimi jab iyo in la aaso kacdoonkii ummadda ay ku kacday taas waxay keentay in dhalinyaradii amaasha iyo rajada qabtay ay niyad jabto oo ay ku niyad jabto wixii ideolooyinkii ay maskaxda ku hayeen waxana mar kale taas hadana ay keentay in dad badan waqtiga ilhaad uu soo dhex galo calmaaniyad ay dhex qaado xataa Soomaalida gudaheeda waqtigaas ay ahayd waqtigii ilhaadka iyo calmaaniyada iyo afkaarta liberaaliga ay soo gashay ay dadka aad ugu faaftay inta dhalinyarada dhibaatadaas haysatay ee afkaartaas ay dhex qaadaysay culimadii ay ahayd inay dhalinyarada hagto ee afkaarta ay kala dagaalanto waxaad moodaysay in aanay ka warhaynin dhibaatada jirta oo waxa hayay infisaam can alwaaqic waaqica way ka leexsanaayeen waaqica way ka baxsanaayeen kama warhaynin qadiyadahana kama warhaynin maxaa dhacay markaa waxa dhacay qofka dhalinyarada ah inuu yimaado muxaadaro ama oo jimcaha yimaado oo laga hadlaayo waxyaalihii weligeed laga hadli jiray lagama hadlaayo muxaadarada lagu soo qaadan maayo ama jimcada khudbadeeda lagu soo qaadan maayo waaqica markaa taagan lagaga faaloon maayo isweydiimaha iyo su'aalaha qofkan dhalinyarada ah isweydiinayo ee waqtigaan social media aad u qarxay oo aad loo soo dhigi jiray maxay tahay shubahaadka gaar ahaan Facebook waxa soo baxay beejaj ciida iyo amarka ka badan oo shubahaadkan lagu qaybiyo
ardaygii yaraa ama qofkii dhalinyarada ahaa ee shubahaadka la soo kulmay marka uu u yimaado sheekhiisii sheekhii kama kaafinayo wuxuu ka hadlayaa qadiyado mukhtalafa عليها فقه وكهدليا arrimo laga dhirigsan yahay oo intaas oo sano laga soo hadlayay taas hadda waxa keentay in saaxadii banaanaato waqtigaas ayaa waxa soo baxay nin la yiraahdo Adnan Ibrahim waa nin doctora oo ku nool dalka Austria gaar ahaan magaalada Vienna oo Filistiini ah waliba gaar ahaan reer Gaza waxa uu masaajid ku yaala magaalada Vienna ka ahaa imaam khudbadaha jimcaha ayaanu soo gali jiray hadaba isagu wuxuu kaga doonaa culimada kale islaamka waqtiga jirtay intooda badan tabcan kulligood ma aha wuxuu ka hadli jiray waaqica markaa taagan iyo qadiyadaha shaa'iga ah ee dhalinyaradu ay hamuunta u qabto in laga hadlo wuxuu ka hadli jiray ilxaadka wuxuu ka hadli jiray calmaaniyadda wuxuu ka hadli jiray liberaaliyadda wuxuu ka hadli jiray doodaha waqtigaa taagan waqtigaa waxa soo baxay nimankii ugu caansanaa may soo bixin laakiin waxa doodahoodu ay aad u soo baxeen nimankii ugu caansanaa ilxaadka ama nimanka loo yaqaan مثلا kale nabiga ilxaadka Charles Dickens waxa soo baxay kutubtii aadka loo tarjumay waqtigaas afcariga loo tarjumay kutubta uu kamid yahay ninka loo yaqaan Sam Harris waxay taasi keentay in ay dhalinyaradu aad ugu daadato afkaartaas dad fara ku tiri sabaan anigu shakhsiyan intaan arkay dadaal geliyay wada geliyay in ay afkaarta ka jawaabaan oo ay la diriraan waxana kamid ah doctorka أردنية اللي يقانون الدكتوريات قنيبي وسلسلة دمستيران يوتيوب كوسو دايي اللي يقانون سلسلة رحلة اليقين هذا بأوصل قلنا عدنان إبراهيم وقت جاء عدنان إبراهيم جمعك استوى حكيها اللي قضية ده ما كانت هاجن حلا جاب إنه ما أنت كهل لو قضية دي ما تتاجنيد تطبق جوديس هذانا قضية كلا صواب حلو أما شبه كلا صواب حلو أما شيء كلا تمادو وهذانا كجوابه شيء كوين مثلا كلا من أين بدأ الخلق أو كلا Charles Dickens iyo Sam Harris iyo waxay ku doodayeen oo meel marinayeen aragtidii Darwin ee ahayd bini'aadamku inuu ka yimi daanyeero oo asalkiisu uu ahaa wax ku yimi sudfa taasoo falanqeynay qofkii dhalinyarada ahaa ee la soo kulmay shubahadaasi marka oo maanta khudbada jimcaha shubahadii oo laga jawaabayo uu arko طبعا qalbigiisa liyad ma in qalbigiisu uu degaya laakiin ka waran qofkaas shubahadaas maanta soo arkay hadii uu yimaado masaajidka oo uu yimaado wadaad radinaya wadaad kale oo leh maxay tahay fulan mas'alada fiqiga uu ku khaldana ama wuxuu qof isweydiinaya nonsense waxan ma waxba khaldan marka waqtigaas uu shacbiyad yeeshay waqtigaas uu aad loo daawaday oo anigu shakhsiyan waqtigaas aan ku xidhmay 14kii 15kii 16kii sanadadaas aad baan ugu xidhnaa waxaan xasuustaa inaan saaxiibna dhalinyarada waqtigaas ku xidhnaa kamid wuxuu ku yiri anigu salaada jimce khudbada intaan isaga sii dhageysto ayaan masaajidka kaliya waxaan u tagaa inaan labada ragcadood salaada ku soo tukado heerkaas la gaar waayo wadowr ay kaalintii wadaadadu ay baneeyeen dadna isagu uu buuxiyay hase haatee Adnan Ibrahim ma ahayn caalim shariica qof yani wadaada oo mutacallima oo diinta bartay oo ku takhasusay oo caalim shariica ah ma ahayn laakiin waxa qof mutalica oo muthaqafa oo wax badan baaray wax badan isagu si shakhsiya isu baray laakiin ilaahay wuxuu ku manaystay ninkaas aftahnimo waa nin aftahana oo qofka uu ugu talagalo maanta inuu amaano cilku geyn kara haduu doono isagoo aan cadeymo ku siinin ama aan qofkii u soo bandhigin cadeynaya qofkan uu amaanayo wuxuu ku amaanayo ayuu hadan cirka geeniyay fulan ka rajul kida saasoo hadlaa inta badan waa nin sidaas qofkii waxa saarkiisa adigoo aan cadeymo haynin laakiin hadana lagu cabsiyay xalqa bas la ka bari inuu maago ama wax ku qabsado kii bari waad arkaysaa uu amaanayay shalayto oo maanta uu dhulka la jaraayo uu leeyahay waxba ma yaqaan waa sidan sidoo waxa ku badan tanaaqudaadka مقالب بدن بنركيو فيديو بدن بنركيو لسه هركينايو لليه عدنان إبراهيم يناقض عدنان إبراهيم شخصية شلته أمانة أو كدجاي يعني سبحان الله عبقري قف فدأة أو مرلا أريئة حدنا في المقابل معناته كلام كدجايو وحكي بس وقعت أنا شخصيا أنت أكو حنا واحد شيء مخالفات في ربنا أو كو أركي هساته وحن وحدنا وح كبدن بكو قبل أو شبهات في ربنا وقت جاء لفتر كيجا يسوق جلي أما عن لك كل مي أيان شوابيه يصير كهلاي هذا بقى wixii ka dambeeyay 18kii runtii Adnan Ibrahim calankiisu wuu dhacay umanu dhicin in aqoontiisii iyo maxay tahay difaacidiintu difaacay inay meesha ka baxday laakiin waxa gacanta ku dhigay oo saameyn ku yeeshay oo masaarkii uu ku socday ka leexiyay dawladda Imaaraadka waxa ay isku xidheen madaxda dawladda Imaaraadka ka arrimisa sida awgeed wixii inta ka dambeeyay fataawidiisa aqwaashiisa iyo hadaladiisu waxay noqdeen hadallo siyaasadeysan dhinac u jeeda aan ku salaysnayn markii hore sidoo ahaa xaqiiqada iyo doonista markii hore waxa laga yaabaa mas'ala aad arkaysay inuu ku khaldan yahay hadana inaad ugu cudur daaraysay inuu ku ijtihaaday ama uu ku dadaalay ama uu sidan ula muuqatay laakiin wixii ka dambeeyay 18kii wixii ka dambeeyay
masaladiisa kasta uu soo dhigo iyo fatwadiisu waxay ahayd fatwo check soo martay imaaraadka iyo Dubai iyo Abu Dhabi iyo ka dhamaan waayay waqtigaas markaa kaarkiisa uu gubtay wixii inta ka dambeeyay cidna kuma xirna cidna ma dhigeysan saaxadana uu ka baxay haddana saasoo tahay طبعا سقوطku wuxuu leeyahay xad buu leeyahay yani qofku marka uu ka dhaco mas'ala ama markaas muayana uu joogay ma filan sidee inuu gaari doono ila al-hawiya yani inuu gunta gaari doono hasaatana Xum Adnan Ibrahim gunti uu gaaray waxaan toddobaad ka hor daawaday isagoo ka qayb galay shir lagu qabtay ama kulan lagu qabtay jaamacadda loo yaqaano jaamacad Mohammed bin Zayed ee ku taala dalka Imaaraadka waxa meesha fadhiyay طبعا madaxdii Imaaraadka iyo aqoon-yahanadoodii iyo cid kasta oo iyagu ay gacanta ku hayaan wuxuu halka markaa ka jeediyay waana masalada aan soo qaatay muuqaalkan waxa ka jeediyay hadal soconay 23 daqiiqadood wuxuu ka sheekayay markaa ikhwaan muslimiinka iyo guud ahaan jamaacadka islaamiga ee ku mashquulsan siyaasadda laakiin wuxuu si gaar ah focus ka u saaray jamaacada ikhwaan muslimiin iyo qaa'idkoodii ama mu'assiskoodii Xasan al-Banna qofku markay ciidas hayaan ee uu doodayo waxyaalaha ka reeban waxa kamid ah shahaamada qofka iyo raganimada shakhsiga laga rabo waxa ah inaanad qofkan ka been abuuran kale ee aad saysaan qofkaasi ha ahaado qof dhintay ama ha ahaado qof nool علامات المنافق بكمتها إن إذا قاسم فجر هذه وقفك سدود أو قفك إسقطان إنه فجور لي ما دو بين يو محيط لي ما دو وحان مش أولين عندنا إبراهيم كمو كوبسن إنه بين كشيء جماعة الإخوان المسلمين أما حسن البنا وحو قدر إنه كبين أبورته وحيلا أنا لهين وأتيريو كورته وحوش الشخصية وقفي مؤسس كجماعة حسن البنا وحو جايين هاني الديكتاتورية وحوها سلطوي أها بل wuxuu yiri waxa uu ahaa xubin kamida mas'uuliyadda sida wuxuu yiri qaabka ay u dhisan tahay jamaacada ikhwaan muslimiinku waa qaabka ay u dhisan yihiin ma jamaacadka mas'uuliga ahi mas'uuliyaddu waxay leedahay wax loo yaqaan at-tanziim al-khaas oo haram ama saddex gees gaar ah jira oo madaxda iyo dadka xulka ah kaliya ay galaan sidaas lamada jamaacada ikhwaan muslimiin waxay leedahay tanziim khaas oo sir ah oo maxay tahay mu'assisku uu sameeyay Xasan al-Banna wuxuu waxa kamid ah cadaymaha cadaynaya inay jamaacada ikhwaan muslimiin ama Xasan al-Banna laftigiisu inuu mas'uuliyadda ka tirsanaa ama ay ka soo dhigteen fikirkooda mas'uuliyadda waxa kamid ah buu yiri in qaabka marka qofku lagu ku biiraayo ee uu doonayo inuu bay'ad sameeyo wuxuu bay'ada u sameeyaa isla qaabka loogu biiro ama bay'ada loogu sameeyo marka qofku ku biirayo mas'uuliyadda wuxuu jamaacada ikhwaan muslimiin qofku ku biiraayo qol madow oo mugdi ah uu soo galaya مصحف iyo baaskolo istul saaran ayuu ku dhaaranaya indhaha uu ka xidhay yani ma aragan mana maqal shakhsiyan weligay meel jamaacada ikhwaan muslimiin lagu biiraayo ama bay'adeeda la galayo si qaabka la sameeyo kutubta uu leeyahay Xasan al-Banna kitaabka uu leeyahay dacwa wadaaciya waan akhri kuma taalo Xasan al-Hidaybi oo ah markii la dilay Xasan al-Banna ninkii xilka qabtay si ka dambeeyay mudakaraadkiisa kuma taalo حسن عشماوي أو نيكي سدحالي وقوم سنة جماعة الإخوان المسلمين وقتياس أو نيكي وعبد أو نيكي جماعة عبد الناصر وإرينا أيه مدد بدن ولبي وإرينا أيه مذكرات كيسة كومتها له أنت عاس أو كتب أو القرآن جماعة الإخوان المسلمين قيادات كودو وكشكينا أيه بدايات كي جماعة وكم أيه مؤسس كود حسن البنا كومتها له أنت زوج مقابسا وحوري مسؤولية مكان لما مدعها كسيدو كلا وحا أيقونا ميل كسو شبهان بو يري نمك لو يقانو الإسماعيلية النزارية قالهان قولي لو يقاني الحشاشين حشاشين تو ونمن بري صواب حيو كمدها طائفة شيعة إسماعيلية لو يقاني وحي قالين قلعة لو يقانو قلعة الموت أو مقالة طهران حوغا أجرتا marka waxay ahaayeen jamaaco ikhtiyaalaad ka qaabilsan oo dila dadka ay doonayaan ama iyaga ka soo horjeeda markii hore waxa ku bilaabmeen dadkii ka soo horjeeda ee ay u arkayeen inay ku dacwada Ismaaciiliyada ku yihiin cadow inay laayaan oo ikhtiyaalaan laakiin markii waxay gaareen in la iibsado oo iyaga cidii la doonayo loo adeegsado ay dilaan waxa markaa madax u ahaa nin loo jeeday Xasan Sabbaax wuxuu bilaabay in uu yiraahdo Xasan Sabbaax iyo Xasan al-Banna waa waaxid wuxuu soo qaadanaya sheeko aan jirin oo leeyahay walaalkii حسن البنا ولكن أو كير وحكيري هذا الكيجا أي كم مهمسن أو كانه رينا هذا الكاجا فكر كيجا علمي يا أركتي هذا أي كهرية أركتي هذا يفكر كاجا يعني مثلا سوق بوركا نيكاسي وهذا الكاس يدود داس يوركاس وتلقى إنه كره لجريو أسياديسة يعني ما كا
nicmada uu ku jiro sababta waxaan hayaa waxaan isku day doonaa labada muuqaalkan uu kaga sheekeynayo jaamacadda Maxamed bin Zayed للعلوم الإنسانية حق هوسان يدين دقي دونا إن شاء الله تعالى سو كل واحد حق هوسان يدين دقي دونا أو عداون دونتان أما أركي دونتان مقال كهري وحسن البنا وكو أمان عيو يعني مركي هراء ونيسو شيغو عدنان إبراهيم يناقض عدنان إبراهيم سألت وفرا إن لو حيتين إنه إسبوريو أو عد كلا إن لو كهنا أما للضوضة أما وما باحنا مركا هراء وأمان عيو حسن البنا وحكدي شخصية فذة أو كم ده شخصيات كفاركوتيرس كأ صومري عالم الإسلامي بقولك سنة ولا صار ضعفي أما قرني جيسي هالتونات أما قرني قلباتنا مركنا وحقسوا قاضية شخصية يعني عجيبة أو للية أو جماعة وحقسوا قاضية جماعة ديرات كوها مسلمين أو إمارات بالمناسبة إمارات كوي نوجنا هاي واحد كويس مسلمين دجودهان يسمع هذا وقت هنا ما أنت عين شغلنا جارهان كيد كانوا هاي السوية دبعتين كانوا جيستي ayuu golo ka soo istaago ama ahaado imaaraadka ama ahaado meel kale uu joogay ayuu ka amaanay waxaan maanayaa maanta shakhsi siyaasadda in yarna waru haya kama qarsoona hagadaamada ay imaaraadku ku hayso dalalka muslimiinta dhibaatooyinka maanta ka taagan Yemen iyada qayb ka ah Liibiya iyada qayb ka ah Masar iyada qayb ka ah Suuriya keedkii ka jiray iyada wali qayb ka ah Soomaaliya waxaan ognahay maanta inay Puntland intay sawaariikh dhigtay halka ay ka duqaysay magaalada Buur Suudaan oo hadda Suudaaniyiintu ay taagan yihiin waliba dowladda Suudaan ay soo saartay bayaan ay leedahay Soomaaliya soo cadeyso arinkan sida uu u dhacay hadii kale meelaha laga soo weeraray anaguna ka jawaabayna waa Suudaan iyo Soomaaliya ayaa madax la isu gelinaya imaaraadkuna dowladda ka dhulka istaagaya imaaraadku hawl u yareystay oo maanta muslimiinta uu u yareeyay ma jirto saasoo tahay hadana meel kasta uu soo istaago wuxuu inooga dhigayaa inay yihiin wali amr bal iska dhaaf halka uu taagan yahay xataa jaamacadda markuu joogo wuxuu ka sheegayaa inaanay wax ku jabnayn qofku inuu noqdo عالم سلطان إنه نقضي ولا السلطان كمحيطين هرجلوا نقضى إنه نقضي ولا السلطة إيو ولي الأمر إيو قيادتي ونستحيا حتى ما إماراتي معها وفلسطيني ولي غير غزة واحد على لو شيء إنه حتى غزة إيو دجالات ما تكسر وحلا قوي دي وحمر بكل علني حماس إنه تهي عميل إيران وشقية مسلمين تي مشى شوكتينا أي كتكر فلان أو أي محيطين أي يبسدين أي لافتدين تنهض السياسية كودهان وحن وركه كوسو كوبيا سلفكو مروا بوحي كود عيسين جيران وكوع علين جيران نسأل الله السلامة والعافية وحي كلو أورين جيران سلفك صالحة هي تيتينا كقاتا تتكدنتي سوتو تتكنول لأنه لا يؤمن حي من فتنة قف نول فتنة لو ما آمن قبو يعني مثال وحي نوفلا عندنا إبراهيم ما أنت وحوها وقت هذا كمدا قف لو نقض مسائلك ولي حساسية عقيدة كسر السنة الحاد كيو علمانية ديو ليبرالية ديو حيالها لبتك ما أنت نحمر يا إنه دفاع إسرائيل إنه كوها الله أفكار إماراتك جماعات إسلامية ها كوها ولنا سئون إن ومدى إسلام كوحي لو بدبادين كرو لو بدبادين لها إنه ورا أو كوش يهين ماسونيين إسماعيليين إيه 12 وحلقة بسرعة أنت مقال كلام كل من دونه واحد كيكتي السلام الله عليكم